Assalaamu calaykum wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada casharka koowaad ee barashada muuqaal hagaajinta. Casharka koowaad waxaan ku baran doonaa wejiga hore ee barnaamijka Filmora X. Haddaba si aad u soo degsatid programka Filmora, waxaad dhagsiisaa linkiga hoose ee qaybta faalada, kadibna raac tilmaamaha muuqaalkaas. Aan gudagalno casharkeena. Programka soo kici adiga oo double click ku dhahaya. Filmora X marka uu ku soo kaco halkan ayuu ku keeni doonaa. Meeshan waxaa la yiraahdaa project library. Waxaa diyaar ku ah muuqaaladii aad ku edit gareysay programkan. Halkan ay ku qoran tahay open project. Shaqada ay qabato gudaha ayaan ku arki doonaa. Halkan select project aspect ratio aad ayuu muhiim u yahay. Meeshan aad ayuu muhiim u tahay. Sababtuna waxaa waaye waxay la xiriirtaa platformka ama meesha aad rabtid in aad muuqaalkan dhigtid. Tusaale ahaan oo kale muuqaalkan waxaa laga yaabaa inaad rabtid inaad dhigtid Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, meel ayaa jirto ama waxaa rabtaa tusaale ahaan oo kale in aad dhala kasoo macnaha mataqaanaa daartidoo kale yacni danaa ka leedahay. Marka meeshan aspect ratio aad ayuu muhiim u yahay. Halkan fur midkan ugu horeysa ay ku qoran tahay wide screen waa nooca ugu badan ee la isticmaalo waaye oo badanaa meel walbana ku shaqeynayo. Tusaale ahaan oo kale dadka YouTube-ka raba inay muuqaal ay soo geliyaan oo kale, Facebook-ga dhalooyinka oo kale dadka raba in muuqaalka ay ka daaraan yacni dhalooyinka waaweyn oo kale wide screen ay dalbanaya. Qofkii rabo in muuqaalkan uu soo geliyo Instagram wuxuu dalbanayaa qaybta si qoran tahay Instagram. Haddii aad rabtid muuqaalkan inaad soo gelisid TikTok ama sidoo kale qaybta shortiska ee YouTube-ka waxaad dalbanaysaa portrait. Saddexdan ayaa marka ugu caansan. Waxaan dalbanaynaa hadda wide screen kadibna waxaan leenahay new project. waa hagaag qaybtan waa wejiga hore ee programka Filmora. Waxaan u kala qaybin doonaa saddex qaybood. Qaybtan waxaa la yiraahdaa media library, qaybtana waxaa la dhahaa timeline, qaybtana waxaa la dhahaa review window. Qaybtan ugu horeysa ee media library waa meeshii aad ka soo geli lahayd muuqaalka, codka, sawirada iyo wixii la midka ah. Tusaale ahaan oo kale si aad u soo gelisid hal areadan meel ka mid ah ayaad click ku siinaysaa kadibna waxaa raadinaysaa folderka ay xogtaada kugu jirtay. Tusaale ahaan oo kale hadda midkan aan rabaa in aan soo geliyo muuqaalkaas, double click ayaa ku dhigi karaa ama click ayaa inta ku dhaho ayaan open dhahayaa. Kadibna sidaas ayuu meesha ku soo gelayaa. Hadda click laga yeelmaayo maadaama hal muuqaal aan soo geliyay waa inaan double click ku dhahaa kadibna wixii aan rabo markaas aan soo dalbadaa. Tusaale ahaan oo kale sawirkan haddaan rabo inaan soo geliyo double click ayaa ku dhahayaa, saas ayuu u soo gelayaa. Waxaa jirto naqshad kale oo aad wax u soo geli kartid halkan inaad tagtid tusaale ahaan oo kale folderka ay wax kugu jireen dabadeedna aad samaysid waxa la yiraahdo drag and drop. Muuqaalkii ama sawirkii ama codkii inaad halkan ka soo jiidid kadibna halkan aad ku sii deysid. Sidoo kale waxaa halkan wax u soo geli kartaa inaad meeshan right click ku dhahdid kadibna aad dhahdid import inaad dhahdid kadibna wixii aad rabtid ayaa markaas soo geli kartaa. Saddexdaas nuucba xogtaada halkan waad ku soo geli kartaa. Halkan aan imaano timeline-ka aad ayuu muhiim u yahay. Waxyaalaha aadka muhiimka u ah ee qofka inuu barto laga rabo meeshan waxaa kamid ah waxa la yiraahdo track. Track-ga waa meeshii loogu talagalay inaad dhigatid xogtaada. Tusaale ahaan oo kale hadda qaybtan waa track, qaybtan kalena waxaa waaye waa track kale. Track wax kale ma ahan, waa meeshii aad dhiga lahayd xogtaada. Muuqaalka iyo sawirada isku meel ayay galaan, isku track ayay galaan. Halka codka uu galo track gooni ah. Waxa laga wada anfaano. Okay? Muuqaalkan soo qaado halkan keen. Drag and drop ku sameynaya, halkan ka soo jiidaya, dabadeedna waxa ku deynaya, halkan ayaa keenaya. Okay? Qaybtan ayuu ii soo bandhigayaa. Waxaan leeyahay keep project settings ayaa leeyahay. Waxaan waxa loola jeedo waxa waaye casharada soo socda ayaa ku qaadan doonaa. Laakiin hadda waxaan leeyahay keep project settings ayaa dalbanaya. Okay, muuqaalka halkan waa soo geliyay. Waxaa jirta naqshad kale oo muuqaalka halkan u soo geli karo aan iska delete gareeyo delete-ka oo keyboardka taabtay. Waxaa sameyn kartaa in calaamadaas inta ku aadisid, okay, ina muuska inta ku aadisid calaamadaas plus-ka aad taabatid. Keep project settings ayaa taabanaya kadibna sidaas ayuu meesha ku soo gelayaa. Marka labadaas nuucba halkan waxba u soo geli kartaa. Hagaag meeshan marka waxaan dhahnay waxaa la yiraahdaa track waa meeshii aad dhiga lahayd xogtaada. Track-gan waxaa diyaar ku ah meeshaas isha ah inaad arkaysid ayaa qiyaasaya. Meeshaas isha haddaad taabatid muuqaalka halkan ma kasoo muuqan doono. Okay, aad taabano tusaale ahaan oo kale. Okay, waa kaasaa muuqaalka halkan ma kasoo muuqanayo. Ka qaad. Okay, wuu kasoo muuqanaya halkan. Meeshan waxaa waaye log waaye.
loggan aad ayuu muhiim u yahay. tusaale ahaan oo kale videogan editingii iyo shaqadii ay ka qabanaysa waa dhamaystirtay, waxaa rabtaa in uuna kaa dhaqdhaqaaqin. sometimes waxaa laga yaabaa in gacanta ay kaaga dhacdo kale dabadeedna aad adoonan yani mataqaanaa ka warheynin halkan uu kaaga soo dhaco ama meel koroo kale as u geysidoo kale. okay meel kore geysidoo kale dhici karta. marka waxaa muhiim ah tallaabo Ctrl+Z waxaa muhiim ah marka haddii muuqaalkan aad shaqadaada ka dhamaysatid inaad log dhahdid. log haddii aad dhahdid ma dhaqdhaqaaqayo, soo ma jidid. haddaad jiido ma jiidi karo. okay calaamadaas ugu dambeysa iyadana waxay muujinaysaa meeshan in ay tahay track loogu talagalay video ama sawir ayay muujinaysaa. okay qaybtan kale iyadana waxaa waaye waa qaybtii loogu talagalay codka. waxaana ku kala garanaysaa halkan waxaa waaye calaamadaas videoga muujinaysaa, calaamadan waxay muujinaysaa wixii la xiriira cod. sidoo kale meeshan waxay leedahay inaad codkii aad daari kartid ama aad macnaha mataqaanaa aad dimi kartid oo kale. okay aan codkan soo qaadno halkan aan kusii dayno. okay waa soo dhigtay codkii halkan. kadibna codka naftigiisa waxaa ku samayn kartaa inaad aad saartid macnaha inaad codka ka xirtid, kadibna codkan ma la maqli doono. sidoo kale log ayaa ku samayn kartaa, hadda waa la dhaqaaji karaa. okay meesha arta gii kartaa. okay si aad u xirtid marka logaas ayaa ku samaynaysaa, wuu xirmayaa. calaamadan waxay muujinaysaa aan dhahnay in meeshan wax yaala ay yihiin cod. okay sidoo kale qaybtan timeline-ka waxaa diyaar ku ah inaad muuqaal oo kale inaad codkaada aad dul saari kartid. muuqaalkii halkan soo gelisay kadibna hadda ayaa codkaada dul saaraysaa. calaamadaas ayaad kilig siinaysaa kadibna muuqaalkiisas ayaa cod ku saaraysaa. waxaa sidoo kale aad muhiim u ah calaamadan waxaa waaye waa zoom to fit ayaa la yidhaahdaa. hadda codkan waa ujeedaa aad uu dheer yahay, scroll ayuu samaystay, soo ma jeedid. scroll uu leeyahay ilaa iyo gadaal ayuu jiraa dhammaadkiisa. marka si aan shaashadan qaybtan timeline-ka ah ula ekaysiiyo calaamadaas ayaa taabanaya, soo ma jeedid. kadibna waxaa waaye fileska dhammaay shaashadan qaybta timeline-ka ayay fit ayay ku naqdeen. okay haddii aad rabtid tusaale ahaan oo kale inaad samaysid zoom in zoom out, inaad mataqaanaa soo dhaweysid inaad fogeysid, halkanaad taabanaysaa. zoom in waaye uu yaraana waa ujeedaa, zoom oodaa ku samayn kartaa. okay uu soo weyneyna waa ujeedaa. fit inaad uga dhigtid haddaad rabtid oo shaashadan oo yacni mataqaanaa uu jin ku naqdo ama uu lafac naqdo, waxaa waaye calaamadaas ayaa taabanaysaa oo ah zoom to fit ayaa taabanaysaa. okay sidan halkan waxaa diyaar ku ah inaad track iyo wax kusoo darsan kartid oo kale. halkan waxaa waaye undo iyo redo ayaa diyaar ku ah. qaybtan oo kale waxaa waaye delete haddaad taabatid wuu baxaa. halkan waxaa waaye split in muuqaalka la kala gooyo. okay aan hadda muuqaalkan uu xiran yahay afuro. okay kilig markaa ku dhahdid muuqaalkaana qaybtaana opshano kale ayaa soo geli doona. okay kilig aan ku dhaho qaybo kale soo gelaya, crop iyo colorkii meeshii laga saxay iyo waxyaalo fara badan ayaa halkaana soo gelaya. marka casharada soo socda ayaa ku qaadan doonaa. calaamadan waxaa la yidhahdaa playhead. calaamadan meesha ay taalo ayaa waxay kasoo muuqanaysaa shaashadda. okay calaamadan haddii hadda aan geeyo qaybta bilowga muuqaalka, halkan waxaa ka arkayaa muuqaalka bilowgiisi. haddii aan soo qaado bartamaha aan geeyo, bartamaha muuqaalka ayaa halkan iga soo muuqan doono. haddii dhammaadka calaamadan aan geeyana waxaan arki doonaa muuqaalka dhammaadkiisa ayaan arki doonaa. marka calaamadan waxaa la yidhahdaa playhead, aad ayay muhiim u tahay. qaybtan preview window-ga aan imaano. preview window-ga opshano fara badan ayaa halkan diyaar ku ah. halkan oo kale waa play iyo pause ayay isku tahay. inaad muuqaalkii play aad dhihi kartid kadibna aad jooji kartid, laakiin shaqadaas waxaa kuu qabanayo keyboardka inaad isticmaashid oo kale space barka, kaas ayaa aad muhiim u ah oo la isticmaalaa. halkan waxaa waaye inaad samey kartid stop haddaad dhahdid oo kale. halkan fiiri muuqaalka bilow ayuu kusoo bilaabaya. okay waa ujeedaa, soo ma jeedid bilowgu geeyey. halkan waxaa waaye waxa la yidhaahdo forward, in dhinaca midigta aad wax yar u socotid. halkana waxaa waaye backward, in dhinaca bidixda aad wax yar u socotid waa iyadana. halkan waxaa waaye in aad muuqaalka shaashadan ka muuqdo inuu noqdo full screen, shaashada dhan aad ka aragtid si qalalaadka iyo waxyaalaha jiro dhan u aragtid. okay somehow zoom camal waaye. okay halkan hadda aad taabto muuqaalkas uma jeedid, shaashada dhan ayuu qabsada. markaan belay dhahoo kale tusaale ahaan wixii qalalaad ku jira iyo waxaasoo dhana si fudud ayaa u arki karaa, sababtoo ah shaashada dhan ayuu muuqaalkii qabsada. okay aan ka laabto. halkan waxaa waaye codka ayaa ka dheeray kartaa kana gaabi kartaa. halkan waxaa waaye okay muuqaalka aan bilowga geeyo. okay halkan waxaa waaye screenshot, shaashadan oo kale qayb kamid a ayaa muhiim ku ah. marka waxaa samayn kartaa screenshot ayaa ka qaadi kartaa. okay screenshotkas markaa ka qaadid halkan ayuu soo geli doonaa. tusaalahaan hadda fiiri. okay
taxi si screenshot u qaadid meesha uu gelayo screenshotkana waa kaasaa folderka uu ku jiriyo halkaas ayaad ka arkaysaa. Okay, marka screenshotkii waa kaasaa screenshot 2 ayaa ku qoran. halkan waxaa waaye qaybtan iyadana waa preview video quality-ga iyo display settings-ka iyo waxaas oo dhan laga galaa. iyadana casharada soo socda ayaa ku qaadan doonaa. intaas markaan saddexdan qaybood aan u kala saarno waxaa iyadana aad muhiim u ah qaybtan. Okay, halkan ugu horeyso kale waxaa la yiraahdaa media waxyaalo fara badan ayaa diyaar kuugu ah. tusaale ahaan oo kale haddii aad rabtid logo ama subscribe iyo waxyaalo lamid ah oo mar kasta isticmaashid ama muuqaal cod wuxuu rabo sawir whatever wuxuu noqdaba haddii aad rabtid shay aad mar walba isticmaashidoo kale inaad mar walba aad gudaha kasoo qaadid xoogaa dhib ayay kugu noqonaysaa. marka qaybtan ay ku qoran tahay shared media ayaad gashanaysaa kadibna mar walba diyaar ayuu kugu yahay oo gudahan ayuu kugu jiri doonaa. Okay, halkan oo kale waxaa diyaar kuugu ah symbol oo kalaro ah mar walba isticmaali kartid. halkan waxaa diyaar ku ah video aad ku practice kartid ku baashaali kartid ayaa halkan diyaar kuugu ah. meeshan imaad waa audio waa codad ayaa diyaar kuugu ah codadkaas oo aad ku practice kartid. halkan waxaa diyaar ku ah iyagana waxa la yiraahdaa transitionka waxa waaye muuqaalada meelaha yani mataqaanaa ay iska saaran yihiin oo kale iyo mataqaanaa qaabka muuqaalkan uu meesha usoo geli lahay ama uga bixi lahay hal kamid ah ku dhufatid oo kale hadda waa fahmi doontaa. Okay, kanoo kale hadda ku dhufo shashadana ka arkaysaa. Okay, ma aragtaa. Okay, kanoo kale hadda fiir soo noqona haddana asigana halkan uga jeedaa soo ma jeedid. Okay, way badan yihiin kanoo kale haddana ku dhufo kana noocaas oo noqonaa. marka transitionada waxyaalahaas waaye muuqaalada meesha iska gelayaan muuqaal iyo sawir meesha iska gelayaan iyo meelahaas ayaa la saaraa. anigana aada hadda u isticmaalaho videogeyga anoo isticmaalaha waa ku dhex arki doontaa. halkaa imaad effectiska ayaguna aad ayay muhiim u yihiin. waxaa ku jira inaad border geli kartid in muuqaalkii aad qaybtaas kobaabinta aad geli kartid oo kale. Okay, qaybo fara badan halkan ku jira inaad muuqaalkii tusaale ahaan oo kale black and white oo kale aad ka dhigi kartid. Okay, muuqaalada qaarkood oo kale qof dhaawac ah ama dhiig ama waxyaalo mataqaana xataa Facebook iyo YouTube in ogolayna ku jirto oo kale tusaale ahaan marka waxaad samayn kartaa ama dadka qaarkood ba ay daawo karinin marka waxaad samaynaysaa black and white qaybtaas u rogaysaa adoo halkan dalbanaysid. Okay, double click ku dheh tusaale ahaan oo kale sidaas uu noqonaa macnaha mujida black and white noqonaa. kanoo kale hadda ku jira tusaale ahaan oo kale fiir asigana. Okay, noocaas uu noqonaa. marka waxyaalo fara badan ku jira macnaha ma fahanti noocii yani mataqaana ku qanciyo kanoo kale asigana fiiri. Okay, wuxuu la camalo noqonayaa asigana. marka qaybo fara badan ku jira qaybtii yani mataqaana ku qanciso ayaa dalba doontaa. halkan ayadana waxaa la yiraahdaa elementiska waxaa waaye waxyaalo diyaarsan ayaad muuqaalkaada ku darsanaysaa. tusaale ahaan oo kale meeshan waxaa ku arkaysaa calaamadahan oo kale calaamadan oo kale calaamado fara badan jiraan macnaha love oo kale ku jira flartan kale waxyaalo fara badan macnaha. Okay, mujida calaamadan oo kale love oo kale calaamadan love-ka waxaan oo dhan marka waa calaamado diyaarsan si fudud ayaad muuqaalkaada ugu soo darsan kartaa. Okay, qaybtan waxaa la yiraahdaa iyadana split screen aad ayuu muhiim u tahay. tusaale ahaan oo kale markaad rabtid muuqaalkaada in side by side laba muuqaal inaad isdhinac dhigtid oo kale muuqaal inaad muuqaal kala dul saartid oo kale tanaad dalbanaysaa. split screen-kana imaanaysaa kadibna labadii muuqaal hal mar ayay play isla noqon doonaan. halkan kugu diyaariyey 3 website oo aad si free ah ama si bilaash ah aad uga soo degsan kartid muuqaalada codka iyo sawirada kuwaas oo aad ku practice kartid barnaamijka Filmora. website-kan ugu horeeya waxaa la yiraahdaa pixabay.com. si bilaash ah ayaa waxa uu soo degsan kartaa muuqaalada codka iyo sawirada. sidoo kale website-kan kale waxaa la yiraahdaa pixels.com isagana waa la mid oo ka soo degsan kartaa. website-kan kale waxaa la yiraahdaa Bensound isagana si free ah ayaad uga soo degsan kartaa codadka aad u baahan tahay kadibna waxaa ku practice kartaa barnaamijka Filmora. casharkani intaas ayuu ku eg yahay. waxaa inoo balan ah casharka xiga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.